waxaan halkan maanta ka jawaab celinaynaa hadalka ka soo yeedhay Cismaan Afkaab oo ka tirsan xusbiga wadani ee uu ku dhaliilayo kuna dhaleecaynaya taliyaha booliska ee ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna dhaliilayo dawladda iyo xukuumadda sida ay wax u maamushay wax u wado annagoo beesha degan bariga Hargeysa oo kana soo jeedo taliyaha ciidanku waxa weeye janankii Jamhuuriyadda Soomaaliland weeye ummadda waa u dhex haddaba waxaanu xogagaal ka baxayn oo aanu ka warbixinaynaa arinta uu ka hadlay Cismaan Afkaab oo ka tirsan xusbiga wadani arintaas aanu ka jawaab celinaynaa xogagaalna aanu ka hayn sida wax u dhaceynaya sidii wax loo waday doorashadii isku sidkanayd ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacday dawladuna sida wanaagsan u maamushay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu maamulay iyo sidoo ka yeelay la ogaa ee wasiirka arrimaha gudaha oo nabadgelyada qaabisay sidoo ka yeelay la ogaa ee jananada ciidanka iyo booliska iyo kuwa militariga dhamaantood habkii ay u maamulayeen nabadgelyada isku dhacday la ogaa ayaa maanta doonaya inay markii wixii dhamaadeen in dub wax loo bilaabo oo xasaasiyad la abuuro markii waxba dhici waayeen taasina waxa ka hor imanaysa nabadgelyada iyo habsami socodka iyo gedi socodka nabadda iyo horumarka iyo bashbashka iyo barwaaqada aynu higsanayno ayaa ka hor imanaysa ee uu nagu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiiradiisu haddaba xusbiyadu iyagoo codkii markay waayeen xusbiyadii markay waxa ay diyaariyeen oo ay sameeyeen inay iyagu sameeyaan barnaamij ay ku gelinayaan dadka ku kiciyaan sababtoo waxa weeye inanka Axmed Yuusuf Guruuje haddaan anagu beeshii dooratay muruq iyo maalbo aanu hornay 6500 cod baan ku soo saaray iyadoo cod badan naga baylahay oo rag badan oo kale cod la siiyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan iyaguna aanan uga baaynin ayaa waxa dhacday isagoo ka tirsan xusbigii kulmiye ku jira dawaakii codka dhinac kale mariyay haddii uu xagga mariyay xildhibaankii aanu dooranay weeye hadduu guul keenay hadduu guul darro keenaba waan la lahayn laakiin arrintii qaabkii aanu wadnay iyo sidii aanu dooranay iyo halkaan codkayga ku shubnay iyo cidii aanu quudnay iyo cidii sida wanaagsan wuxuu maamulaysan codkayga siinay uu ka baydho meel kale u maray bal haddaba inankii anagu isaysanin oo inankii miidiya ka wada hadlaynin bal waxa soo galiyay xusbiga wadani iyo xafladda la qabanayay ayaan umka garan laanay taliyahana odayaasha la hadlay meesha wali isku dilayaa baa la yiri ka qabaalay meesha taliyuhu waajibkiisa inuu gudanaya ciidanku soo diray waa uu joojiyay sababta hadaan arrinta aanu qaban lahayn oo uu joojinayn maanta khasaara ka dhacay haddii maanta cidii hadda waa nabadgelyada ilaaliya maanta la dhaleecaynayo oo la muduulayo ee musqawey arrinta aad iyo aad baan uga xunahay halkaasi ku dhintahay tan inankii aanu dooranay isma hayno isagu miidiya nooga soo fuulin isaga isma hayno waxba isma hayno inanku halkii doonay codkii uu mariyay maantana way doorashooyinkii dhacay inuu kelmada ka nidhaa nin sanadka soo weeraray inaan kala ka hadlo Cismaan Afkaab bay wadada ka tirsan waxaan leeyahay wada doorashada laba in isku sistem baa inoo dhacday oo lagu farxay oo caalamku dhammaan lagu jiranayo isku sistemaatay yaa qabtay ilaahay iyo baa qabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo 18 milyan oo doolar qadada ka bixiyay waxa qabtay wasiirka difaaca iyo wasiirka amniga iyo tanka bileeska nabadgelyada sugay waxa qabtay ninka komishinka haysay raac lagu naarayso oo aan raac u bixiyay baa qabtay waxa dhacday doorasho wanaagsan halka meel waxa ka dhacday xaflad oo qaban qaabinayeen dhalinyaro iyo wadani qaban qaabinaysay oo in anagu aanu soo saaray oo 13 jil wax dalacay soo saareen oo haddana xusbiga ku biiray oo aanan inankii anu damaana jalaysan xusbaan ka dooranay inuu guurguura maana jalaysan ragii oo leeyahay baan ragii soo horay baan ka mid ahay ragii dagaalamay ka mid ahay abiina xildhibaan ma ka dhigaysan xildhibaan halkan ku soo khiyarku xusbigu ku jiro inuu ka guura maana jalay haddana in kolba la ilaahay halka xaflad anaga looga jeedo oo anaga dhigan loogu kicinayo laga qabto oo janaka lagu aflagaadeeyo raali kama in rag yara dacweeyay janaka saas ku yimash nabadgelyadu sugay in Afkaabow janaka hadleedaha ka jawaabo adu janaka ma adu ku shaqeeyaa in Afkaabow halka hadleedaha baad qaban oo buuxo iyo balibidgaan iyo gaashaamo
hargeysanna isaaqo amba janaado amba xildhibaanadaado amba shicibaado ama farashaade uguma xashuulan kartid waan ku masaafirin doonaa gabigaagaba waan ku masaafirin 95 fiisan siin jiray aweegada ku soo gashaan sida idin ku dhici wada saxaabada sheegayseen magac Cabdullaahi saxaabada ku soo gali jiray hargeysa ikraashu isagii saaqo isagii magac Cabdullaahi saxaab gudoomiye Cabdullaahi saxaab yaa ku soo gali jiray fiisan fiiso biriska ku qaataan aan siin jiray maanta janankayga wadan jabisa waa magaalada ka diri والله أنا كادر مقالة أدي كل ما أجيو أدي قدامي كاجي أشيء سوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورية الصومال لين بقول كيف بقول بس سلامتي هذه أدنى مدحوينها يو كداخلها يو مدحجة يسرقي شيء لما وصل منه وحنو لنا هاي بيلها الصومال لين حسبي له ويكون كل شيران سنة كلها في القادين يعني أنا بتقليد ومسؤول كي هاي وأنك خمرقة iyo xashiishada iyo tuugta dalka waa ninka sida uu aan uga shaqeynayay dejiye sida geesinimada loo shaqeynaya kaasi aflagaade ma geeyo wuxuu geeyaa mahadnaq baan inta raacinaya ninka la yiraahdo Faysal Afgaab waxaad ka tirsantahay xusbiga wadani Ismaan Afgaab xusbiga wadani يلا ونقبيه وحول واقع الحشوم ان ودننا uu ku beeray waxa flagaado isaga nooga tigina ma jirto inankuna waxaanu isagu xasaasiyad iyo ka gelin reerka hadii dadku ay wadani abuurto oo beel isku horkeen waxaan leenahay wadani ha ku ekaato wadanimadeeda oo ay beelaha iyo waxa xusbiyada ku kala ku jira bidna aflagaadiin laanaba ma aflagaadiin dad wadani baa hana afar hablood oo reerka aba la keenay xagga hore headline kala soo dhigay nabadgeliye la'aanta ka dhici nabadgeliyada sanadku ka qabtayna dadkii doortay oo dad kale lagu caawsleynaya baa lagu dagaalami gaarayo odayaashii iyo jalankii meesha ciidanka geeyay way ku mahadsan jalankuna nabadgeliyo meesha u jooga Soomaaliyeed Soomaaliland uu ilaaliyo dadka foodada doonaya ee doonaya nabadgelyada inay ku ciyaaraan cid waliba way arki waa taliyihii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ummadda reer Soomaaliland oo dhan buu u hayaa ay u shaqeynayaan u hayaa mas'uuliyad u hayaa cid kasta oo Jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu uga shaqeynayay sida mas'uulnimadiisu ay ku cadahay waa loogi warninkan leeyahay uu hadlayaa xusbu buu ka tirsan yahay xusbi ha ka tirsanaado waa nin beel buu ka soo jeedaa inay sawir gal beel buu noqonayaa marka aan ka noqoto lagu jawaabi beesha uu ka soo jeedo janankuna ma aha beel ayda dadka oo aflagaadaysa beeluhu waxay beel samaysaba dhacdhaca iyo socodka beesha uu ka soo jeedo laga dhisleen badan marka run laga hadlayo laakiin halka uu ka soo jeedaa cidna ma duqayso nin kasta oo xusbi ka soo baxo xusbi kala gala oo haddana ku noqda ma dhaleecayso waa beesha aan cidnaba aan weerin reer Soomaaliland beesha uu ka soo jeedaa caynka markay tahay war waa la iska hor imanayaa oo haddii nin mas'uul ah oo ka soo jeeda beesha ka baxaya qarannimadii iyo mas'uuliyaddii iyo wada jirkii reer baa la isku jawaabi doonaa waxaan leenahay janku shaqada qabtan iyo shaqadu hayo intaba waa la yaqaanaa odaygayga horreeyay baa ka hadlay oo hadalka dhameeyay oo ka hadlay inankan anaga xaggayga ka soo jeeday gurujana waan u ducaynaynaa adeer waa u ducaynaynaa inankuna waa inan annaga ah waxba u tari maysaane inanku weli beesha uu ka soo jeedo wax dhibaato uu geysiye gambar ugu soo fadhisay TV uu ka hadlay midna ma jiro waa ku hambalyeynayna masduuro baanu leenay laakiin ciidan uu wada ee xafladaha qabanaysa xafladii maalintii weytay laga hadlayay waxay lahaayeen waa dadkii codka siiyay oo soo dhaweynaya oo u mahad celinaya been bay Ilaahay u sheegeen waa la soo garanaya
annagu xafladda waan tagnay hal qof oo ciddii codka siisay oo meesha joogay ma jirin waa xamaasad waa iska horkeen inankii bay annaga isku kaaya garaacayaan inanka waxba oran mayno waa u ducaynaynaa annagu waa u ducaynaynaa waxaanu leenahay reerkii uu ka dhashay wax si annaga noo yaalla weeyaan dee waa ina yaroo aan dhalay oo aan waalidunay halku maray wuu maray wax laga odhanayaana ma jiro waxaanu ku dhaleecaynaynana ma jiro waa war dhammaaday waxaanse leeyahay waar haddii ay xusbiyada mucaaradku ay doorashadan imika dhacday haddii ay meel kastaba ay ku badsadeen meesha ay ku badsadeen maaha meel reer ahee waa jumhuuriyadda Soomaaliland nin kasta oo xil qabtay ama golo deegaan ha noqdo ama golo baarlamaan ha noqdo waa halkii dadka laga waxa looga fadhiyaa cidina cid qori kuma hayso ma afduubayse talada dadka ka dhaxaysa laakiin nin kasta oo meel fadhiisto ma isu liiba ha ku shaqeeyo rabitaanka ummadda iyo isku haynta ummadda iyo u shaqeynta ummadda waanu cid u kala sheegin waxaad moodaa xafladu waa siyaado hadaladu waa siyaado waxaad moodaa in la isqabsaday wartaa meesha anagu waxaan oran lahayn ha laga daayo xusbiyadana waa lagu kala jiraa waa saddex xusbi qaran baa jiro Soomaaliland ninkii meel ku jiraabana kuma ceebaysna waxaanu leenahay war siyaadada ha laga daayo sanankana waxaanu leenahay sanan raalle ahaw adiga marka kaliya ku hor yaalla waxa weeye dadku inay ku sinaadaan oo shaqeysa ilaahayna waa ku eegaya ummadana way ku eegaysaa laakiin cidda xusbiyada ee badan golayaasha waxaanu leenahay waxaad moodaa inay dhinac wax u wadaane waar dadka u dhaxeeyo ka daaya fiirsashada iyo waxyaabahan aad moodo in la qodqodayo ha laga daayo qarannimada taasi ma wanaajinayso dadkuna inuu kala shakeeyo maaha ciddii meesha timaadaba waa cid ilaahay keenay laakiin xilka saaran waxa weeye inay bulshada ay u shaqeeyaan si wanaagsan ay u metelaan ummadda reer Soomaaliland sanankana waxaanu leenahay aad iyo aad u mahadsan yahay